السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعن ونرسم دور ريال كسودو هذا قطبة وركنا ودور كرون جبهة حرينتا أورومية OLF أيها وها أي قبضتي أما أي دوريتي الآن وبلارم بوندada تكازا أو ديب لو ضيعتري بوليسكا هي إلى مدى جاركا دولة ديجانكا أو ديك وشوية إلى مدى ميليتريجا qaar ka mid ah safaaradaha dalka Itoobiya oo la xiray dagaal xoogan oo ka socdo duleedka magaalada Dizet. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Itoobiya ayaa sheegtay in ay xirtay safaaradii ay ku lahayd dalka Algeria taasi oo ay ku tilmaantay inay u xirtay sabab xagga dhaqaalaha iyo waliba caabuqa COVID-19 oo saameyn ku yeeshay. balse dadka saadaaliyo arrimaha diblomaasiyadda caalamka ayaa waxa ay sheegeen in safaaradda Itoobiya loo xiray dhaqaalo dhanka markii uu soo wajahay dhaqaale la'aantaasi oo waliba sabab noqotay sida la sheegay markii dowladda Itoobiya ay dagaal ay la gashay jabhadda Tigreega. waliba safaaradda midda Algeria kaliya ma ahe waxa la filayaa la yiri in safaarado badan oo ku yaala caalamka oo Itoobiya ay leedahay in dib loo xiro. dagaal culus ayaa xilligan ka socdo duleedka Dizet ee magaalada ama u dhaxeeyo magaalada Dizet iyo magaalada Konbosho oo qiyaastii 12 kilomitir u jirto Dizet. dagaalka ka socda ayaa ku sii sikanayo dhanka Dizet iyadoo ilaa iyo shalay uusan joogsan dagaalka. sida muuqatana xaaladda labada dhinac ayaa ah ismarin waad waxaana la filayaa in saacadaha soo socdo uu dagaalkaasi dan u dhaco taasi oo mid uu guusha siin doonto. guud ahaan dalka Itoobiya waxaa ka taagan jahwareer xoog leh oo siyaasadeed iyo mid colaad xilli xaadirkan ilaa hadda lama saadaalin karo waxa ama qaabka uu ku dambeyn doono dalka Itoobiya. dagaalka u dhaxeeyo militariga dowladda Itoobiya iyo kooxda fallaagada ee TPLF ayaa waxa maalmaha dambe uu ku sii xoogaysanayaa dhulka buuraleyda ee Axmaarada. jabhadda xoreynta Oromiya ee loo soo gaabiyo OLF ayaa waxa ay la wareegtay dhul aad u ballaaran taasi oo waliba ka saacidi doonto in ay u helaan meel ay ku gabadaan amaba ay kula dagaalaan ciidamada militariga dalka Itoobiya. ciidamada Oromiya ayaa waxa ay dadaal xoogan ay ku wadaa in ay la wareegaan guud ahaanba gobolka Oromiya waa sida iyaga hadalka ay u dhigeen ayna doonayaan in maamulka gobolka iyaga looga dambeeyo. buundada weyn ee Takaza ayaa dib loo dayactiray. TPLF ayaa waxa ay shaacisay in ay dib u dayactirtay buundada weyn ee Takaza ee u dhaxayso gobolka Axmaarada iyo Tigreega. buundadani ayaa horay waxa u gooyay ciidamada militariga dalka Itoobiya sida dadka qaar ay sheegayaan kadib markii ay ka soo baxeen gobolka waqooyi ee Tigreeg iyaga oo diidanaa in Tigreeg ay u soo gudubto dhinaca gobolka Axmaarada. balse dadka qaar ayaa waxa ay sheegayeen in buundadani ay goysay ciidamada TPLF ay horay ee u jareen iyaga oo diidanaa in ciidamada militariga Itoobiya ay ka soo gudbaan. hase ahaatee waxa dib u dayactiray sida hadda la sheegayo ama ay shaaciyeen ciidamada TPLF iyaga oo waliba soo saaray ama soo muujay sawirro iyo muuqaalo ay ku sheegayeen in dayactir ay u geysteen buundadaasi iyaga oo waliba doonayo inay u noqoto marin ay u maraan dhanka kale ee gobolka Axmaarada taasi oo u sahlayso in ciidamadooda iyo gabaarida dagaalka ay si fudud halkaasi ay u maraan gaadiidka gargaarkana halkaasi uu soo gaaro. booliska gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay bilaabeen inay dhiig u shubaan ciidamada militariga ee ku sugan waqooyiga dalka Itoobiya. ciidamada gaarka ee New Booliska ayaa waxa lagu amray inay dhiig u shubaan ciidamada furinta hore ee dagaalka ku jira ee hortaagan ciidamada TPLF.
mana ahan markii u horeysay oo dhiig ceenkan oo kala ah la shubo iyadoo maalmihii u dambeeyay aan arkaynay wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya Axmed Shide oo isaga laftiisa wasaaraddiisa farayay inay dhiig ay u shubaan ciidamada furinta hore ee dagaalka ku jiro. daawadayaal barnaamijka waxa qayb igala ah ama ila dahabinayo waliba inoo hayo xaaladihii u dambeeyay ee gobolka City saaxiibkay Cabdiqaadir soo dhawow maxaad aad baad u mahadsantahay sida wada ogsoonaydeen gobolka City ee galbeedka dowlad deegaanka Soomaalida isbuucyadii la soo dhaafay waxaa ka socday dagaalo xooggan oo u dhaxeeyay maamulka Cafarta iyo dowlad deegaanka Soomaalida. dagaalkan oo ugu yaraan qaatay dhowr iyo 10 bari ayaa waxaa la sheegayaa inaan weli xal oo rasmi ah oo lagu dhawaaqay una jirin hase yeeshee ay jiro ololaha lagu joojinayo dagaaladan xooggan oo u dhaxeeya dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka Cafarta. warbaahinta dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegaysaa in dowladda federaalku ay aad ugu xoojinayso in dagaaladan la joojiyo hase yeeshee labada maamulba mid walba uu ka cagajiidayo qaabka dagaalka loo joojinayo una mid walbana ka dhaxalkin maslaxadiisa sida ay u rabto dowladda federaalka ama sida uu asagu jecel yahay. waxaa la soo sheegayaa inay 3 wafdi oo kala socda dowladda federaalka iyo labada maamul ee dagaaladu halakeeyeen in ay ku wajahan yihiin goobaha ay dagaaladu ka socdaan iyo dhulkan ay colaadu aad u saameysay. waxaa la sheegayaa wafdi dowladda federaalka iyo maamulka Cafarta iyo dowlad deegaanka Soomaalida in ay maanta ku kulansan yihiin degmooyinka ay dagaaladu halakeeyeen waa Candhuufo iyo Cadaytu iyo Garbaciise. dhacdooyinkan ay dowladda federaalka wada ayaan la ogeyn waxa ka soo bixi doona maadaama dagaaladan ay yihiin dagaalo aad u soo noqday oo in badan ay deegaanadaas ay caadab ka noqotay inuu dagaalo dhaxmaro maleeshiyaadka labada deegaan iyo ciidamada gaarka ee labada dowlad deegaan. dagaaladan oo la sheegay in ay ku barakaceen ugu yaraan 10,000 oo qof inta ka badan ay khasaaro weyn ka soo gaadhay oo hanti iyo maalba uu ku baabay ayaan la garanayn meesha uu ku dambeyn doono. dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maamulka Cafarta waxay ku eedeysay in ay markasta ayagu dagaalka cusboonaysiiyaan soo bilaabaan markastana ay xasuuq baan ka geystaan deegaanada ay Soomaalidu leedahay. sidoo kale maamulka Cafarta ayaa ayagu waxay ku doodayaan ciidanka dowlad deegaanka Soomaalidu inuu asagu ka dambeeyo dhibka una ku dagaalamayo dhul una lahayn oo Cafar leedahay. deegaanada lagu dagaalamaya ayaa waxay deegaano taariikhi ah oo dowladihii hore ee dowladii TPLF ay hogaaminaysay ama maamulkii Cabdi Ilay in ay ku wareejiyeen maamulka Cafarta degmooyinkaasi. hase waqtigii isbedelka uu ka dhacay dalweynaha Itoobiya ayaa waxay maamulka deegaanka Soomaalidu waqti ay ka fadhiisteen arrimaha deegaankaasi ay ku sheegeen in ay arintaasi ka laabteen ayna sharci darro ahayd. sidoo kale maamulka Cafarta ayaa wuxuu arkaa kalaabashadii dowlad deegaanku ay ku dhawaaqeen inay degmooyinkaasi ka laabteen in ay daandaansi iyo gardarro dagaal oo maamulka Cafarta ayagu isku wadaan markasta dhulkaasi inay leeyihiin xaqna ay u leeyihiin ku dagaalamaan. hase yeeshee dowladda federaalka ayaan weli go'aan ka gaadhin dhulkaasi meesha uu ka tirsan yahay. maanta oo la filayo inay wafdi labada dowlad deegaan iyo dowladda federaalku waa isku yimaadaan goobaha dagaaladu ay halakeeyeen ayaa la filayaa inay go'aanka ugu dambeeya qaataan iyo sida loo xalinayo. daawadayaal waxa intaasi inagu dhan war wixii dambiye dib naga soo gaaray oo halkan aad la socoteen warkana waxa idin soo jeedinay anigoo Bidaan iyo saaxiibkay Cabdiqaadir intaan warkan mid xilkulmeeno nabad gal.